أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين والأولياء والصالحين في كل لحظة واللمحة عدد ما وسع علم الله تعالى. waxaan kusoo dhex jirnay maktabada shaamila sharaxaadeedii waxaan kasoo akhrinay dhowr cashar oo kala duwan ilaa aan kasoo gaaray riska la yiraahdo magaciisa alqur'aan alkariim wa tafsiiruhu. asagaan riska dhammaystiray waxaana noogu xiga asraartan kala bedelan oo waxaa moodaa hadda kala barkii shaashada inaan marayno. waxaa noogu xiga sharax riska la yiraahdo takhriij, riska la yiraahdo card, ikhfaa, nuskha almusawara. saddexdaas ras marka oo isku xiga saddexdooduba waxay shaqeeyaan markii ay ku xiran yihiin kitaabka furan, kitaabka macnaha sharxiisa uu ku xiran yahay, sidoo kale markii uu xadiis yahay oo takhriijkiisa ku xiran yahay, sidoo kale markii ay ku xiran yahay nuskha musawara oo bahalka la yiraahdo PDF ah. laakiin haddii kitaab markaa kuu furan yahay oo aad weydid saddexdaa ras ayagoo baaris oo saan oo kale u muuqanaya, waxaad arkaysaa markaa inaysan shaqeynayn oo kitaabka uusan ku xiran. Matalan hadda kitaab haddii aan furro kitaabada ka mid ah, markaasna aan sii furraa isagii kitaabkii aan caadi mudaalacadii baabkii sii joogno, saddexdii rasba way qarsoomeen. waxay taasi ku sheegaysaa inaan asraartan kitaabkan midkoodna uusan ku xirnayn sharax, uusan ku xirnayn ama uusan ku xirnayn bahalka la yiraahdo takhriij, uusan xadiis ahayn takhriijkiisa ku xiran. sidoo kale nuskha musawara PDF-na inuusan lahayn. sidaas ayay ku tusinayaan markii daahir noqon waaya. haddiise ay shaqeeyaan mid ka mid ah oo shaqeeyaan kulligood ay shaqeeyaan, waxay ka dhigan tahay taas inay kuu shaqeynayaan markaas camaliyadoodana markaas ayaa loo gudbeeyaa. sidoo kaleeto marka saddexdaa rasiyadaasaan uga gudbaynaa maadaama aysan ahayn asraar mar walba shaqeynaysa ee marmar dhifa shaqadooda bilaabanayso. waxaa inoogu xiga raska la yiraahdo turjuma. raskan turjumada la yiraahdo haddii aad korkiisa ku dhufatid waxaa kusoo baxaysa shaashad oo turjumada macnaha raggaas turjumada ka waramaysa. ugu horeynta wuxuu yidhi Axmed ibn Ibrahim bin Khalid al-Musili. ninkaas turjumadiisu wuxuu ka ahayd yiri kibaar al-aaqidiin can tubac al-atbaac, macnaha taabici ayuu ahaa ninkaas tabaqaadda soo joogay. sidoo kale wafaadkiisu 210 iyo 236 bay ahayd. cidda wax ka warisayna waa daal faq oo laga wado Abu Daawud iyo Ibn Maajah oo fi tafsiir uga wariyay, oo faqdan waa fi tafsiir, Ibn Maajah fi tafsiir ayaa laga wadaa. marka cidii ka warisay bay noqonaysaa markaa rutubada cinda Ibn Hajar buu kugu sii hoos dhigayaa waa saduuq, cinda ninka la yiraahdo Dahabina waa thiqa. sidoo kale horteeda waxaa ka muuqanaysa al-jurh wa tacdiil oo raggii waxaas ku sheegay oo dhan ama jirxiye ama tacdiiliyay ayuu halka kaaga sheegaya. shuyuukhdiisiibuu tan kaaga sheegaya markaa ku dhufatid kuu soo bandhigaya. taas saddexaad markaa ku dhufatidna wuxuu kuu soo bandhigaya bahalka la yiraahdo talaamiidiisi oo ciddii asaga wax ka qaadaya. shaashadan hoosteeda waxaa ku qoran raqamka. halkaa waxaa gelaya kitaab haddii aad baxthi u dirtay wey. matalan hadda halkan waxaad ku qortaa ninka la yiraahdo Maxamed binu al-Muthani. markaa intaa u dirtid waxaad tiraahdaa shaashat al-baxth. sidan ayuu kugu soo daadinayaa. markaa baxthigii buu ku raadinayaa. kutubaad uga wareegaysaa. waxaa laga yaabaa magacii oo taam ah inuusan kuu soo dhigin, laakiin magacyaal ka bedelan kuu soo dhigo. marka ugu hor dambaysa iyada waxaad gaaraysaa, waa raacaysaa macnaha ilaa aad ka gaartay magaca u dirsatay oo Maxamed ibn al-Muthanna ahaa. محمد بن المثنى بن عبيد بن قيس بن الدينار العنسي. halka ayuu sheekadiisa kaaga sii waday oo duruqdii iyo intii kaaga warisay oo dhan buu kuu sheegay. marka kitaabkaas waxaa laga yaabaa halkan raqamkiisa safxadii kitaabka inuu kugu mujalladka kitaabka ka yahay iyo safxadiisa halkan kugu soo qoro, raqamka xadiidka uu wariyayna halkan uu kugu qoro. kitaabkiina halkan waa tii aan soo marray card al-kaamil markii aan baxtiga joognay oo kaleeto, ama markii kitaab noo furan baxtiga aan joognay oo kaleeto, cardigaas iyo kana waa isla shaqo. tanna waa xifdigii oo tacliiqa markaas shayga ku yaala aad xifdisanaysid. arrintaana waa arrinta xagga baxtiga aan kusoo marray, waxba kale kaga bedela. shaashadan waa tii baxtiga laftarkeedii. waxaa marka mulaaxado muhiima ah, aduu shaashadan intaas ay joogtaa, laakiin haddaan jambigan ku dhufano intaana mulaaxadada gaarin waxaa soo baxaya shaashadii shaashad ka bedelan. markaad u baahan tahay marka inaad baxti ka samaysid oo kaleeto waxay kuu noqonaysaa inaad meelahaas buuxisid. mid walbana waxaa ka hoos qoran ayuu ku buuxsamayo.
sida kan ugu horeeyo kale mawlidka oo kale ku qoran mawlidka ku buuxsamaya dabqat bil arqam baa ku dabaqa bil arqam baa ku qoran ayuu ku buuxsamaya wafaad baa ku qoran ayuu ku buuxsamaya ilaa aad ka soo gaadhid rutbatu inda ibn hajar wa rutbatu inda dahabi marka u baahan tahay marka waxa suurtagal ah inaad waxaas dhan ka soo gaabsatid oo halkan rutbatu ibn hajar oo kale maqbuul مثلا ku qortid maqbuul xaqan aad ku qortid thiqa markaasna aad baxthi tiraad oo ku soo daadinaya waxa la wixii ibn hajar uu ku sheegay maqbuul dahabi uu ku sheegay thiqa oo halka hoostooda ku soo qoray arrintaas iyo buxuuta noocaas oo kale ayay tani qaabilsan tahay waxa suurtagal ah adigoon shaashada dulba joogin markaas ee kitaab daalacanaya oo kitaab dhexdiis ku jira inaad ku aragtid kitaabka daalacanaysa dhexdiisa nin magaciis sida hadda حدثنا أحمد بن جميل المروزي ninkaas ayaad marka u baahan tahay wuxuu yahay turjumadiisa u baahan tahay isaga calaamad hay'ad ba saaraysa ama calaamad taxdiid kala dhigi jiray carabi ahaan markaas ayaa waxa ku dhufanaysa turjuma ninkaas ayuu ku baaraya marka uu ku baaray wuxuuna kaaga keenay 3 kitaab أحمد بن جميل المزني أبو يوسف يرجس ayuu ku turjumaynaya turjumadiisa ayuu ku sii akhrinaya waa kaas kitaabadaas ayuuna kaaga soo qabtay mujalladka kitaabka uu kaaga keenay waa 4 meesha la yiraahdo safxadiisuna waa 296 raqamka xadiidka uu wariyayna waxa weeye 2020 waa inta marka intaas ayaa ku buuxsamaysa oo markii aad mujalladka kitaabka aad joogto mujalladkiisina halkaas uu kugu qoraya sidoo kale waxa la yiraahdo kitaabka safxadiisa halkan uu kugu qoraya raqamka xadiidka ninku wariyay halkan uu kugu qoraya inta kale waxay kala mid tahay shaashadii baxtiga aan soo maray inahaas hadaan uga gudubno baxtiga oo qaybihiisa kala duwan bahalka la turjumada waxa halkan inoogu xiga raska la yiraahdo istiraad malafat wadifadiisa waxa waaye maktaba shaamil inaad soo gelisid kitaab oo dariiqo elektarooniga aad soo gelisid taas oo ah inaad raska korkiisa ku dhufatid hal mar markaana wuxuu ku soo saarayaa shaashadaas oo aad ka dooran kartid meeshii uu kugu jiray shayga aad u baahan tahay sida hadda computer oo kale ayaa waxa kugu jira raska shayga u baahan ka soo gudub computer xaqana uu kaaga daahirinaya tanna uu kaaga daahirinaya labadooda kii aad ku dhufatidna isku wadiifo مثلا هذا دي oo kale ba waxa igu jiray kitaab aan u baahanahay inaan ku soo daro maktaba shaamil asaga ayaan ku dhufanaya markaas ayuu azraarta ay soo siinaya maktaba shaamil aan ku dari lahaa ama halkan ka dooro ama ka dooro waa isku mid مثلا kitaabadan kitaab kamid ayaan soo qaadaya oo ku soo daranaya isaga ayaad qaadaysaa halkaas aad ku sii deynaysaa kitaabka magaciisa ayuu halkan kugu soo qalaya بشارة ayaa ku qoran oo hadda magac inoo ah laakiin ala sabiil المثال way kitaabka adu meesha kugu jira ayaad ka raadsanaysaa marka kitaabkii raadsatid tan waxaad ka saxaysaa macnaha majmuucada aad ku daraysid kitaabkaas majmuucadii markii aad soo dooratid ayaad ku dhex daraysaa kitaabkan kutubun غير مصنفة hadda majmuucadaas ayaanu ku daraynaa waxaad ka dooranaysaa marka istiraad الكتب إلى البرنامج عبارة أيو وريجنا يا وحير كده مركو وريجا شو هذا ما كتاب هذا حجميكش أنتوا لقيا يا وريجنا مانا يا هذا دي كتاب مديري هنا وسكيراني هذه كلها أنا مدبر أنا لقيا بين استقرار وقت بدن نقاط لكن عضو بعد قليل وحي نقنا يسائن وقدر أنا جديد هذه كتاب وحلا شرط عينه وافق سني هاي أو عرنتا وانصاد عفني علامات كهلك أكو قرن متكملة أو أخير أيام ندبقوا لابنا إن مركو عرنتا كبحه أو بهالك اللي جنب هذا كتيرة أو 10 بكون مقيم هاي أمر بقاتي marka soo baxayaan ku sharxi doonaa insha Allah sida marka raskan waxa loo maraa markii aad rabtid dariiqo elektarooni ahaan ah inaad ugu soo degtid kitaab waxa jira wadiifooyin kale oo dariiqooyin kale oo loogu soo dari karo kitaab marka aad u baahan tahay maktaba shaamil kuwaasna casharada soo socda ayaan ku gaari doonaa oo markii qurfatu taxakum aan ka hadlayno oo kaleeto ayaa waxa inoo soo bixi doona shayaal ku dhameeyay ayuu yiri tamma istiraad jamiic almalafat markaas kitaabkaas uu inoogu jiraa maktaba shaamil ah tan hadduu kitaab ahaa way hadda kitaab ma ahayna waxyaabo iska daray isaga soo shumnay bay ahayd laakiin hadduu kitaab yahay maktaba shaamil uu ku jiraa waxaanu ka helaynaa markii aan ku dhufana ard al-kutub waxaanu raadsanaynaa majmuucadii aan wax ku daray kutub غير مصنفة ay ahayd waxaanu ka raadinaynaa magac aan ku soo daray hoosta ayuu ku qorayaa bishaar waayada ku qoran haddii aad furtidna shayga gudihiisa wuxuu ku jira ayaa ku furmaya haddii aad deysatana dee uu kugu jiray markasta uu kugu jira marka waxay noqonaysaa arrimahaas iyo wixii la mid ah ayaa wax loogu dari karaa maktaba shaamil
qaabab kaleeto oo noo soo socdana insha allah mar dambe ayaan sharxi doonaa haddii ilaahay idmo. marka waxaa muhiim ah kitaabka shayga aad ku daraysid oo wordka markuu u samaysan yahay oo kaleeto ama noocyaalkan wordka waa inuu samaysan yahay, text waa inuu samaysan yahay, noocyaalkaas afartaad nooc ka dambeysana haddii uu word yahay waa inay gadaal kala socoto. markuu word yahay afartaa qayb midkood waa inuu gadaal kala socdo. markii aad calaamada wordka dul istaagtid afartaa qaybood midkood waa inaad gadaal ka heshid. sidaad markaa gadaal saa uga saartid oo kaleeto waa inuu magaca markuu dhameeyo kadib ay gadaal kala socon karto. inahaasoo dhan markii laga soo gudbo tan kor u baxyo hoos bax waxaa macnaa kuma sii jiraan inta kaleeto oo shaashadan ay inoo qabanayso. insha allah waxaan noo sii gudbi doonaa asraartaas ka dambeyso oo insha allah aan sharxi doono casharadeenan kuwa ka dambeeya haddii alla idmo. wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.